الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan inta aan uga hadlo dhacdadii saaka ka dhacday magaalada Baydhabo oo runtii ugub nagu ahayd siday rabtaba ku timaado muddo badan oo bil gaaraysana aan ka shaqaynaynay waxaas iyo wax la mid inaysan ka dhicin koonfur galbeed oo cid kasta oo dadka reer koonfur galbeed ah ama dhaqan ha noqdo ama dhalinyaro ha noqoto ama aqoonyahan ha noqdo ama ciidamada qalabka sida ha noqoto aan la wadaagnay dulqaad tiro badanna laga muujiyay ujeedka annagana uu ahaa muddadii inta aan joognay inaysan ilaahayba mahaddaas iska leh dadka magaalada Baydhabo jooga iyo dadka reer koonfur galbeedba dhibaato argagixisada khawaarijta al-shabaab aan ahayn inaysan la kulmin. marka dhacdadii saaka dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kastoo samaysay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay dadkii ku dhintay Allah u naxariisto samir iimaan Allah ka siiyo eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna Ilaahay u boogadhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna Ilaahay intaan ha nooga reebo. intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro sida la socotaan dhaqankaanaga noloshaanada diintaanada iimaankaanaga wuxuu na farayaa nabad baa naas la nuuga leh inaan nabadda ilaalino nabadgelyadana aan hayno. cid kasta oo ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama concern kala qabto ama wax tirsanayso gogol nabadeed baa fidsan gogoshaas nabadeed ay ku sheeganayaan cid kasta waxay rabtana ay sheeganaysaa wax harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas'uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagno sidii nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen. maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay ma in xabad lagu rido ama la isku rido. xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaarijta waxay muhiim u tahay in ayaga looga naxiyo ma ahan in ayaga ay isaga naxiyaan ama ay shacabkii maanta ay ku dhacdo oo looga naxiyo ma ahan raallina kama nihin mana ka ahaan doono. cid kasta oo reer koonfur galbeed ahna waxaan leenahay waan ku soo dhaweynaynaa aan ugu baaqaynaa nooc kasta oo yihiin in nabadda laga wada shaqeeyo wixii nabadda ka baxsan wada hadal baa lagu helayaa la wada hadlo xal la wada raadiyo si maanta mushkiladan aan ku jirna aan uga baxno. marka aad iyo aad u mahadsantihiin si gooni ah waxaan fariin u dirayaa ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaacii shacabkooda inay sidii u hayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u hayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan la istusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda ahayd shaqada ay ka lahayd ay tagto. dadka reer Baydhabo oo milyan iyo 200,000 oo qof ah oo 800,000 oo qof oo ka mid ah ay yihiin dad IDPs ama qaxooti ah oo meesha ugu dheer 10 kilomitir 15 kilomitir ka soo qaxay yimaaday ay yihiin inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin in aan ka shaqeyno sidii loogu celin lahaa deegaanada ay ka yimaadeen saan ugu celin lahayn degmooyinkoodii saan ugu celin lahayn noloshooda inay heli lahayn laakiinse
inaanan hadeertaan naxdin iyo dhib kale aanna gelinin intaasaan ciidamadan ayaan u sheegayaa aada iyo aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu